Waa maxay sirta ku jirta cinabka? Haddaba daawada ma jeceshahay inaad wax ka ogaatid faa'iidada caafimaad uu leeyahay cinabku? Cinabku wuxuu ka mid yahay miraha aadka u macaan oo dunida meelo badan laga helo oo inta badanna dadku ay jecel yihiin. Dad badan waxaa laga yaabaa in kaliya ay macaankiisa ka helaan, hase yeeshee aysan ogeyn faa'iidada ku duugan cunista cinabka. Haddaba inta badan dhalinta Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la wadaagno cinabka waxaa ku jira maadan soo saarida lagu magacaabo polyphenols, taasoo ka saacidaysa qofka in uu cudurro badan ka badbaado. Haddaba halkan waxaan kusoo gudbin doonaa dhowr faa'iido oo cunista cinabka laga helo. Wuxuu sare u qaadaa cinabka awoodda maskaxda, wuxuu daweeyaa neefta, wuxuu dib u dhigaa qofka inay ka muuqato da'da, wuxuu daawo u yahay nabraha wejiga ka soo muuqda, wuxuu u fiican yahay maqaarka iyo tinta. Sidoo kale cinabka wuxuu xoojiyaa lafaha, wuxuu ka hortagaa cudurrada ku dhaca wadnaha, wuxuu baabiyaa calool fuurka ama sidaa u taqaanid calool xiranka, wuxuu furaa ama bogsiyaa dheefshiidka, wuxuu maareeyaa kaadi macaanka sidaa u taqaanid, wuxuu daryeel u yahay caafimaadka indhaha, wuxuu daweeyaa xanuunada qaar ee ku dhaca kelyaha, wuxuu isu dheelitiraa dufanka raaca dhiigga ama sidaa u taqaanid cudurrada wadnaha ku dhaco qayb uu ka yahay, kaasoo hoos u dhiga cudurka kolestaroolka. Wuxuu ka hortagaa bakteeriyada jirka soo weerarta, wuxuu ka hortagaa kansarka ku dhaca naasaha, wuxuu si dadban ula diriiraa aneemiyada ama sidaa u taqaanid dhiig-yarida. Daawadaha qiimaha badan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay janaalka Cabdulaahi Colombo inaad saaratid subscribe.